بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد ودرسيني تمناد دروستي تفسير كقرآن كجزء عامة نقول لقى بشهر رمضان درسيني وحين نقول دون أفر سورة سورة الضحى هي سورة الشرح هي سورة التين هي سورة العلق لبعض السورة ذي وهراء وسورة الضحى هي سورة الشرح لبعض وحكاها الله يا النبي صلى الله عليه وسلم هي إلهي تبارك وتعالى سيد أكرامي هي شرفتي سا هي قيمة ربي سي تبارك وتعالى سورة الضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وحي كسو دكتي سيدا حديث كجندب بخاري مسلم يسو صارين وشيغيو نبي صلى الله عليه وآله وسلم تشردي انتو مكتشوغي أيو تشردي نبي صلى الله عليه وسلم marka habeen iyo laba habeen buusan istaagin marka haweenay ba u timid gaal ah haweenay gaal ah ayaa u timid markaas waxay ku tiri ya Muhammad ma ara shaytaanaka Muhammadow shaydaankaagi wax ku keeni jiray ma arko yaani inuu ka tago uu ku nacay way markaas ilaahay aayad uu soo dejiyay والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى marka xilligii iyo marxaladii Makka nabigu uu joogay sallallahu alayhi wasallam ay soo dagaysaa arintaasana laga jawaabayo nabiga inuusan rabbigii nicin inuusan ka tagin inuusan u caloonin bal inuu yaraantiisina ilaahay tabaaraka wa tacaala abaal badan u galay hadda wixii ka dambeeyana abaalkii wax ka weyn inuu ilaahay siinayo tabaaraka wa tacaala ayaa laga hadlaya wuxuu rabbi yiri tabaaraka wa tacaala marka wadduha barqinkii baan ku dhaartay ama maalintoo dhanba dheh طيب والليل habeenkii baan ku dhaartay ida goortii sajaa uu xasilo oo ama dadkii ay xasilaan oo wixii ku hoostiisa ku jira wada xasilaan ama asaguba xasilo mugdigiisa uu ku xasilo intaasaan ku dhaartay ma wadacaka kaamuusan tagin oo kuma sagootiin rabbuka rabbiga nabi maxamedow wama qala man aroonin kuma aroonin ولا الآخرة آخرة أيانا خير بدن لك أذيك كو خير بدن من الأولى تنهر مد الضنب أيا كاغ خير بدن مد النهر ولا سوف يعطيك وكسين دونا ربك ربك وحبو كسين دونا لما شيء وحل سيني فترضى مركز رال نغن دونتا وأتقنع دونتا الله تبارك وتعالى سان هوري وسو برني wuxuu ku dhaartay laba makhluuq oo makhluuqaadkiisa kamida xajabta leh ilaahay qudradiisa iyo awoodiisa ku tusaya waa maalinta oo laga cabiray barqinkii iyo habeenkii markuu xasilo oo mugdigiisa wixii khalqi ahaana uu xasiliyo isaguna uu xasilo labadaas uu ilaahay ku dhaartay tabaaraka wa tacaala muqsamu calayhi wax weeye nabiga sallallahu alayhi wasallam sheekadii ay gaaladu ku sheekaysteen ee naagtaasi hawartaasi ka turjuntay ee ahaa shaydaankaagi waa ku nacay ayaa laga jawaab waxa la leeyahay rabbiga kuma nicin kaama tagin kuma cadhoonin nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam bal iskaba dhaaf inuu ku nacee tan dambe ayaaba kaaga fiicnaan doonta oo aakhira ah tan hore waxaan adduunka kugu siiyay wax ka fiican ba ku dambeeya wuu ku siin doonaa raalina waad noqon doontaa baa layidhi rabbiga baa ku siin doona muxuu ku siin doonaa yaani wuxuu siin doonaa adduunka intuu joogana nasri iyo guul iyo gaalada uu ka adkaado iyo qalabo iyo taageer uu siinaya rabbi tabaaraka wa tacaala markaasuu raali noqonaya tawxiidkii oo faafay diintii oo guulaysatay ummaddiisii oo xoogaysatay yaani waxa way waa ku farxaya آخرنا وكسينا يايو وحن عد كلا لسينين بآخر لسين دونا واي والنبي صلى الله عليه وسلم درجة أوس الرئيس آخر ده إسقى إسكاله
nicmada ugu badan iyo barwaaqada ugu badan isaga iska leh nabiga ilaahay baa siinaya tabaaraka taala athar baa jira Abdullah ibn Abbas laga wariyo uu leeyahay rasuulka waxa loo soo bandhigay wax kasto ummadiisa loo furi doono gadaashi kanzan kayd yani ummadaha kale kaydadka ay ka furan doonto iyo dhulalka ay qabsan doonto iyo khayraadka ilaahay u furi doono ayaa qayb nabiga loogu soo bandhigay sallallahu alayhi wasallam fasurra bidalika markaas nabigu aad ugu farxay wala farax gali aad ugu farxay rasuulka sallallahu alayhi wasallam markaas uu ilaahay aadan soo dajiyay jannadana ilaahay wuxuu ku siiyay buuri yani 1 milyan oo qasri yani guri yani guri kastana waxa ku jira wax ku haboon oo xaasas iyo khadam iyo adeegayaal ah يعني النبي صلى الله عليه وسلم وحي إلهي السين دونه وحل قياس يماه ابن جرير ابن أبي حاتم يصو صاريح أثر كاس ابن كثيرنا وحول سنة كيسوا صحيح يسقوا كلنا الرأي اللي جميل هذا يعني وحقت المام يا إنه يهي مرفوع معنى إنه نغون كري المهم هدي وسقنا دي هدوسا سقنا نبا نبي حقوقا عائلة هي السين يا تبارك وتعالى والضحى بانكور ارتمالنتي والليل هبينك إذا قرتي سجاء حسله إما ودعك كاموسا تجينو كمسجوتين ربك ربك نبي محمد وما قال منكو عرون ولا الآخرة مد الضنبا خير بدن لك أذيك كو خير بدن من الأولى مد هراء الدنيا ذا وحق كو ضنبا يا كفي عن واحد دونك يا لوي ولا سوف يعطيك وكسين دون ربك الدون قول الدون هي نعمة أغرب وكسين دون ربك ربك فترضى مركزات رالي نقونيسا وتكو قنعي دونتا مركزا وحاليلي يعني إلهي وحو أتري مركا نعموينكي وقالي يرانتيسي أدونك انتو تشوغي يرانتيسي لغا صوب الله نعموينكي لو قالي ومعنوه تاهي الله سيدا كوغو نعمي سيبو كاغا تغيا هرانا وكوسو نعميي قدال وكو نعمين دونا ألم يجيدك ميوسن كوهلين ألي يتيما أضو أغون أو فآوا سوكو مضمين ووجدك سموسا كوهلين ضالا أضو لنسا وفهدا سوكما هنونين ووجدك سموسا كهلين عائلا أضو عيدا وحبا هيسنين وفأغنى سوكما ديقين فأما اليتيم أغون كمركا فلا تقهر الرماسي وحيا هين نعموينكي يقال لذيه ألا أقال النبي محمد صلوات ربي والسلام عليه يعني أغون بوأها أغون نمدي سيبا إلهي وحو دياري صببتي أغون نمدى أوكا كبان لها ومثلا hooyadii waxay dhimatay asagoo nabigu sallallahu alayhi wa alihi wasallam 6 jir ah mise 8 jir buu ahaa labada riwaayad waa la sheegaa aabihiina wuxuu dhintay ama isagoo yar ama asagoo uurka ku jira 6 bilood ah ayuu aabihii dhintay hooyadiina daadaasay ku dhimatay marka wuxuu noqday agoon labada dhinacba ah agoon rajay abuu noqday nabigu sallallahu alayhi wasallam agoonnimada marka ilaahay baa dumay lama dayicin mana dayacmin adeerkii Abu Talib ayaa Ilaahay tabaaraka wa tacaala markiiba u diyaariyay oo koriyay oo gacanta ku qabtay oo hoosta soo gashaday marka Ilaahay baa u diyaariyay adoo agoona Soomaaliya ku helin oo Soomaaliya ku dumin abaal way mid labaad markaad weynaatay oo muxuu ahaay aadan garanaynin qaabkaad Ilaahay u caabudi lahayd iyo sharaa'icdii ayna ku cadayna يعني صومانا كوسو دجنين وحيغن iyo quraankan oo Soomaaliya ku hanuunin daalantu waxway kutubta qaar baa waxay ku fasiraan yaraantii uu dariiqa ka lumayo waa la soo helay macnahaasi macna xoog badan ma sida saxda waxway dariiqa cibaadada ama cilmiga sharaa'icda ayaa ka maqnaa sida Ilaahay aayad kale ku sheegay ma kunta tadri mal kitaabu wala al iimaan kitaab wuxuu yahayna maadan ka warhaynin nabi maxamedow إيمان وحو يهينا ماذا كور هيني با نبيك لو يري صلى الله عليه وسلم ربيكي كو يري marka wax weey xilliga hore sax nabiga sallallahu alayhi wasallam ilaahay shirkigi tolki iyo quraysh ay ku jirtay ilaahay waa ka ilaaliyay dambiyada waaweyn waa laga ilaaliyay markuu godka ku cibaadeysan jirayna yaani muusan aqoonin cibaado far badan oo ku cibaadeysto laakiin waxoogaa uu nabi ismaaciil diintiisi ka dambeysay ayuu la khalwoon jiray لكن تفاصيل شريعه iyo waxyaalahan dib uga soo tagay quraanka iyo waxyigu la keenay muusan haynin taas marka laga wada wajadaka dallan fahada adallun sanbu ku helay kadibna Allah waa ku hanuuni Allah soo kuma helin adigoo caa'ila waa faqiirka marka faqriga loo dhinac waa galaya
xoolo muusan haysan nabiga sallallahu alayhi wasallam agoonnimo ku korayba waa mid labaade yani wax way qalbigiisa waxyigan markuu ilaahay ku soo dajiyay waxa ilaahay galiyay qiina nafs dhankii xoolahana markuu weynaadayba nabigu sallallahu alayhi wasallam ilaahay hanti yani wax way adeerkii iyo ganacsigiisii markii dambana xaaskiisii Khadiija oo dhaqaale leh buu guursaday markii dambana saxaabadiisii oo rumaysay baa hanti lahayd nabiga sallallahu alayhi wasallam markii dambe uu gaalada ka adkaadayna hanti badan buu ka furtay nabiga sallallahu alayhi wasallam marka faaqna dhankii adduunyo ahaana waa la deeqay qalbigiisana ilaahay deeqsinimo galiyay oo qiina nafsi ah labadu way soo galaysaa alam yajidka miyuusan ku helin alla yatiiman adoo agoon oo faawa soomuusan ku dumin ووجدك صوموسا كهلين ضالا أضل لنسان فهدا مكو هنونين ووجدك صوموسا كهلين عائلا أضو عيدا فأغنى صوموسا كديقين الله تبارك وتعالى مالنا واكو قدقي نفط هذا يا قلبي قاقان إلهي غنينمو قلي طيب مركا الله انت بكوسو قلي سيبو كون عيا كاقتك ياواي فأما ليتمي أغون كمر هدو النعموين كاللغو قلي هذه أنا وحال الرباء ضدك إناد أبال أسميسو ضدك إناد إحسان أسميسو فأما اليتيم أغون كمرك أغون بعد سوء هنشرتي فأما اليتيم أغون فلا تقهر هقصب حوق هو شيغن وأما السائل كوحويدي سنة ينا كوحويدي سنة ينا فلا تنهرها قول عنانن وأما بنعمة ربك النعمة سنة فحدثك شيكي تسلي ودام أبالك لغو قلي يرانت هذه إله هذا ربي عنايدي سي رعايدي ساعات كجرتي haddaba agoonnimaad soo martay yani wax weeyaan ha qasbin oo ha xoog haw sheeganin oo wixiisa ha boobin ka wax ku weydiisanaya ama cilmi buu ku weydiisanaya ama xoolo ku weydiisanaya waa baahan yahay gacantu horsanaya waa dawarsanaya fala tanharha canaananin ha gulgulin hadaad wuxuu heli kartana si hadaad wuxuu heli kareenin hadal wanaagsan ku dheh laakiin wax weey hadal xun iyo ficil xun ha kula kicin nicmada ilaahay kuugu nimceeyo kuwa alla soo sheegay ay kamid yihiin ka sheekee ha qarinin nicmada ilaahay lama qariyo sheek wuxuu ilaahay kuu galay tabaaraka wa tacaala agoon baan ahaan jiray sidana aan ahaa ilaahay baa ibadbaa koriyay isoo dhow idumay ilaahay waxyigan uu soo dajiyay waa i doortay intanu ii galay nicmada rabbiga ka sheekee kuwan dambe marka fa amal yatiima inaan agoonka la xoogin inaan miskiinka dawarsanaya la guulguulin la canaananin nicmada rabbi inay laga sheekeeyo nabiga sallallahu alayhi wasallam hadalku u dhacaya laakiin ummadiisana waa loo jeedaa inagana waa ina soo galeynaa macna sidaas weeyaan yani waxay aayad mutanaawil li jamiic al-umma wa طيب intaasi waa suuratu duha wa suuradan labaad waa suuratu sharh weeye ayadana bilowgeeda nabiga sallallahu alayhi wasallam ayuu rabbigii ku galad sheeganaya nicmooyinkii abaalkii ilaahay u galay ayuu nabigiisa korkiisa ku sheeganaya tabaaraka wa tacaala rabbi wuxuu leeyahay alam nashrah soomana waasicnin nabi maxamedow laka adiga sadraka laabtaada soomana waasicnin wa wadacna soomana dajinin anka xagaaga wisraka culayskaagi soomana ka dajinin طيب الذي culayskaaso anqada ka shanqariyay dhahraka dhabarkaaga warafacna soomana koryeelin laka adiga dhikraka sheegidaadii xuskaaga xusidaada in lagu xuso lagu sheegana Soomaaliland kor u qaadin iyo magacaaga fa inna ma'al usri marka intaasaan ku yeelay dibkan iyo culeyskan hadda ku haystaayay fudayd baa ka dambeyn doona waxba yuusan ku xuslaynin fa inna ma'al usri culeyska la jirankiisa waxa ahaaday yusran fudayd inna ma'al usri culeyskan la jirankiisa waxa ahaaday yusran fudayd fayda goorti فرغت أد كفارقض أرمهاجا الدنيا مشاغش الدنيا مركات ضميسته فانصب لبوت أما استاج عبادة الرب تبارك وتعالى وإلى ربك حقيس كلية فرغب رجيه شري أما رجيه ضمع عاقيه هنقولي قاقونا حق الرب كلية هذا لنح كليتا قلبي قاقو يسن آذي نبي صلى الله عليه وسلم ayaa lagu la hadlayaa saynu sheegnaybo rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam abaalkii ilaahay u galay waxa kamid ahaa asaga oo yar ayaa qalbigiisa la dilaaciyay malag baa loo soo diray qalbigiisa la jeexay markii la jeexay kadibna qalbigiisa waxa laga saaray wixii uu shaytaanku ku lahaa xikmad
iyo wanaag iyo iimaanna waa laga buuxiyey marka qalbigiisu qalbi khayrkii wanaagga iimaanka iyo taacada waasac u abu ahaa yaa u waasiciyey markii waxyigu ku soo degayna waxyigaa waasiciyey marka qalbigaaga Soomaaliland laabtaada waasicinin waaye jawaabtu waa haa soo abaal weyn ma oo lagu galay waa haa mid labaad ee loogu abaal sheegtay nabiga waxa weeye ووضعنا عنك وزرك عليسكاغي كسارنانا سومانا كادجنين عليسكاسي وحليه الإمام مجاهد وحليه وحلقة وضع يعني وحياله انتي يعني لو وحيون كهر وحياله كرعي ها ومحوها هاي صح دنبيده والشرك وحيالها العلوسية ولقى إلاليي لكن هذا مع ذلك وحيالها قاركوضو كرعي ويجران سيدا آيات وحلمي هاي ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وحي ذنبي هوري ودعي هوري كاغا دعي سي لوغو دافا النبي صلى الله عليه وسلم marka taas oo kale la mid tahay yani culayski saarna dhabarkaaga alladhi anqadha dhahraka anqadha wax la yiraahdo annaqid wax la yiraahdo marka shaygu uu culus yahay oo culayskiisa dartii uu la shanqarayo yani wax weeyaan xoolaha kale marka la raro oo dhabarkiisa ama muxuu ahay ay wax saaran yihiin tunkiisa saaran yihiin waxa saarani markuu aad u culus yahay jiiq shanqadha ka baxaysa waa saasay macna ama qarjac dheh ama jiiq dheh shanqadha shayga culayskiisa ka baxaysa ayaa waxa la yiraahdaa naqiid kale anqadada macaas laga wadaa dhabarkaaga cusleeyay oo ka shanqariyay marka waxa la tilmaamayaa waxa ilaahay uu ka dajiyay uu ka dhaafay inuu aha shay dhabarka nabiga ku cuslaa sallallahu alayhi wa alihi wasallam waxa kale oo la yiri warafacna laka dhikraka wa abalka afrad waay magacaagana sheegidaadan kor u qaadnay yani quraanka kariimka meelo far badan magac arbi marka la sheego nabiga lagu lamaaniyaa sallallahu alayhi wa alihi wasallam markaynu islaamnimada la soo galayo waa in allahna la qiro nabigana la qiro waa isku lamaayeen muadinku markuu aadaamayo sidoo kale Soomaaliyeed yani wax weeyaan miisaaqi ballanti ilaahay uu qaaday sidoo kale muxuu ahay tashahudka sidoo kale yani magacaaga meel sarangeeyay waay magacaaga meel sarangeeyay maadaama magacii rabbi kiisiba uu ku lamaaniyay magacaagan kor u qaadnay sheegidaadan kor u qaadnay yani wax weeye sidaas laga wada maadaama intaaba aan ku yeelay xaaladda marka ay suuradani soo degayso waa xaaladii Makka la joogay oo culayska badan yahaystay nabiga sallallahu alayhi wasallam la fiihiisana uu khatar ku jiray saxaabadiisina cadaadiisii dhib badan loo geystay qaar badan dhulka laga qixiyay ka hijroodeen qaar badan la cadaabayo la ciqaabayay dhibka idin haystay fudayd baa ka dambeyn waay fudayd waliba uu ka dambeeyna lama dhehna uu ku lamaan yahay bale culayskan fudayd baa ku lamaan waa lagu celiyay waxa la yiraahdo culayskan fudayd baa ku lamaan saasay macna culimadu waxay yiraahdaan marka usriga la sheegay macrifa laga dhigay yusrigana nakira laga dhigay usriga macrifayntiisu waxay tilmaamaysaa bimaana waa un isagiyo la soo celiyay nakiradu se waxay ka dhigan tahay laba shay oo kala duwan waana meesha ay ka keeneen yani wax weey lan yaghliba muxuu ahay lan yaghliba usrun yusrayn hal culays laba fudayd ila laba fudayd marka la soo celiyay fudaydko nakira Allah buu tilmaamaya usriga markii la macrifeeyayna mid buu tilmaamaya marka wax weey laba fudayd hal culays kama adkaan karo hal culaysi kama adkaan karo laba fudayd hadana maxaa la yiri maca lama dhihin bacda lama dhihin bimaana waxay tilmaamaysaa markii usriga iyo culaysku ka haysto sida ay u dhowdahay ilaahay fudaydkiisu sidoo u dhow yahay fududayntiisa iyo kurbada ku haysata fayditaankeeda iyo dhibka ku haysta inuu wanaag ka dambeyn doono say u dhowdahay baa waxa laga dhigay inayba dhibka ku lamaan tahay macna tayib mar haday sidaas tahay marka maxaa lagaaga baahan yahay arimahaaga adduunyada markaad dhamaysato cibaadada isu taag oo iyada yani wax weeye gal wasaas diintu wasaaso yani wax saaca saacadna adduunkaaga ka shaqeyso saacadna aakhiradaada markaad arimahaaga adduunyada iyo mashaaqishiga shaqada iyo ganacsiga iyo howlaha iyo xamaalashada soo dhamaysato fansab dhibood marka ama isu taag cibaadada marka isu taag oogano cibaadada ilaahay tabaaraka wa taala isu taag waay tayib markaan cibaadaysanayo yaan wax ka rabaa waay wa ila rabbika rabbiga xaqiisana farghab rajee
rajadaada iyo damacaaga iyo qalbigaagu xagga ilaahay ha jiro cid kale waxa ka raadsanin la malak wala hajar wala dhagax wala wali wala cidna cid kale tood wax u doonato yuusan jirin rabbiga xaqiisa kaliya rajadaadu ha ahaato waxay ka dhigan tahay oo kale fa'buduhu wa tawakkal alayhi alla caabud isagana tala saaro ilaa cid kale wax loo raadsado waxa ma jire sidaas way macna halkaasan suuradii sharaxna ku soo marnay ama suuratu sharh ku soo marnay oo iyadana nabigeena sallallahu alayhi wasallam sida ilaahay u karaameeyay iyo abaalka uu galay bay tilmaamaysay iyo xaaladii marka ay ku sugnaayeen inuu fudayd insha Allah ta'ala la jiri doono ka bixi doona waana sida ilaahay u ballan qaaday bay noqoto yaani waa la dhibay laakiin dhibkii waxa ka dambeeyay guul baa ka dambeysay way tabardarnaayeen awood baa ka dambeysay dad la eriyayda ahaayeen dawlad baa ka dambeysay dhulkii inay qabsadaan baa ka dambeysay makadii lagu dhibahayay inay dib u qabsadaan oo iyagu ka taliyaan baa ka dambeysay marka wax way fudaydkaas ka dambeeyay saas way macna suuratu tiin ayaa suurada inoogu xigta ah ayadana waxay soo degtay marxaladii hore Makka ayay soo degtay oo iyadana wax weeye Ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu kaga hadlayaa awoodda uu u leeyahay soo celinta bini aadamka bacdama uu abuuray oo uu ahaysiyay kadib ayadana waxay ku bilaabanaysaa dhaar Ilaahay dhaaranayo tabaaraka wa tacaala oo uu ku dhaaranayo makhluuqaadkiisa qaar kamida wattiini bu Ilaahay tabaaraka wa tacaala geedka tiinkan ku dhaartay wazaytuuni iyo zaytuunka وطور سينين سينين ماشي اللي يراهdo buurteedii baan ku dhaartay وهذا البلد بلد كان ku dhaartay الامين امينka intaasaan ku dhaartay لقد خلقنا حقيقه وان ابورني الانسان انسانكي في احسن تقويم توسن مد ugu fiican ayaan ku abuuray yani sida xubnihiisa loo toosiyay iyo sida loo simay iyo istaagiisa sida loo toosiyay suuradiisa yaani toosin mid ugu fiican ee ugu qurux badan baan ku abuuray baa Ilaahay tabaaraka wa tacaala tiinka iyo zaytuunku waa laba geed tuur siniinana tuurtu waa buur siniinana waa meesha ku taalo hada albalad alamin wa makka waxay culimadu leeyihiin saddexdaas aayadood waxay tilmaamayaan saddexdii kitaab ee kutubtu Ilaahay soo dejiyay ugu dambeeyay uguna weynaa meelihii markii nabiyadu meeshii lagu soo dejiyay nabiyadii rusushii kutubta lagu soo dejiyay meeshii ay kutubtaasi ku bilaabatay oo dejintoodu ay ka bilaabatay التين والزيتون waxay tilmaamaysaa bileen labada geed meeshay ka baxaan bay tilmaamaysaa waa Baytul Maqdis laana labada geed batiinka iyo zaytuunkuba meesha ugu badan ay ka baxaan waa Baytul Maqdis waxayna tilmaamaysaa bileeyihiin kitaabkii injiil ahaa meeshii Ilaahay uu ku soo dejiyay oo nabi Ciise markii injiil lagu soo dejinayay wuxuu joogay Baytul Maqdis meeshaas uu joogay marka meeshii uu injiil ku bilaabatay nabi Ciise ayay tilmaamaysaa labada geedi meeshay ka baxaan baa laga hadlayaa التين والزيتون وانا ماشي u badan yihiin طور سينين wax weeye buurtaasi iyo meeshaasi siniin la yiraahdo iyadana waxay tilmaamaysaa kitaabkii tawreedaha iyo nabi Muuse markii lagu soo dejinayo meeshuu joogay isagana meeshii markuu isagoo Madiyan ka soo laabtay oo soo socda meeshii Ilaahay uu kula hadlay oo waxyigu ku bilowday oo tawreedii ay ku bilaabatay ku soo dejinteedu طور سينaa bay iyaduna ahayd taas iyadana tilmaamaysaa وهذا البلد الأمين وحو تلماما يا مكة وماشي قرآن كريم كأ نبي صلى الله عليه وسلم لغو بالله إنو كسو دغو قرآن مركي غورس مكة كو بالله سو دغي ديس مركي دنبنا مدينة iyo meelihii kale nabigu aaday uu ku soo degay salawaatu rabbi wa salaam alayhi marka saddexdoo waxay tilmaamayaan saddexdii kitaab meeshii ay ku bilowdeen tawreed waxaan u jeedaa injiil iyo tawreed iyo quraan saasa la soo xijay waliba culimadu waxay tilmaamayaan hadal sidan oo kala ah oo sidan oo kala naskan oo kala ah wuxuu ku yaalaa tawreed buu ku yaalaa ilaa hadda uu ku yaalaa kitaabkan muqaddaska ay dhahaan ay haystaan yani wax weeyaan muxuu ahaay yahuuda iyo kristankii ay haystaan ilaa hadda naskani waa ku yaalaa naskaasi wuxuu leeyahay jaa Allahu min tuuri Sinaa wa ashraqa min sa'ir
wastaclana min jibaali faaraan ilaahay wuxuu ka yimid duuri siinaa wuxuu ka iftiimay saaciir wuxuu ka muuqday oo ka daahiray buuraha faaraan la yidhaahdo marka waxay leeyihiin naskaasi iyo aayadani baa isku macno ah naskaasi muxuu sheegayaa marka ilaahay baa duuri siinaa ka yimid yani waa meeshii nebi muuse towreed loogu dhiibay wa ashraqa min saaciir saaciirtana waxaa la yidhaahdaa waa tuulo yar oo baytulaxmi agteeda ah meeshii nebi ciise calayhi salaam uu ka soo jeeday tuulo yar halkaa ku taalla iyo buur waliba tuuladaa ku taallaa saaciir la yidhaahdaa iyadana waxay tilmaamaysaa nebi ciise meeshii iyadana kusoo degtay wastaclana min jibaali faaraan waxaa la jibaalu maka sidaasaana towreedi ugu taallaa jibaalu faaraan inay maka ula jeedaan oo towreed marka la fiiriyo injiilna waxaa ku tusaya markay ka hadlayeen towreedi markay ka hadlayso nebi ibraahim wiilkiisii ismaaciil meeshuu geeyey waxay leedahay towreed wuxuu geeyey ilmihiisa jibaala faaraan marka jibaalu maka la yidhaahdaa halkaasi waa nas marka towreed ku yaalla oo tilmaamaya nebi maxamed sal alla alih wasalam inuu rasuul ilaahay soo dirsaday yahay laanna jibaali faaraan oo makaa nebi kale kama soo bixin marka waa bishaare nebi maxamed sal alla alih wasalam ilaa haddana towreed bay sidii ugu taalla naskaasi ugu yaalla marka naskaa towreed ku yaalla ee saddexda kitaab tilmaamaya meeshay ku bilowdeen iyo naskan والتين والزيتون وطور السينين وهذا البلد الأمين أيا اسم طابقين اسكو معنا أمر سيداس معنا انت سان كل ارتب الله تبارك وتعالى لقد خلقنا حقيقة وان أبورنا الإنسان إنسان كي في أحسن تقويم إلهي مركو أبوري إنسان كان ومخلوق عجب بدن واحد يعني وحوي إلهي مخلوقات كي سكو عجب بدن مكمل سيدو إلهي أو أبوري واسق روح بدن توسين قروح بدن حبنيه سيء يالان suuradiisu say u taalo ilaahay qudrada uu siiyey jirkiisu isu saaran yahay xubnuhu say u siman yihiin fi ahsani taqwiim wa tayib sidaasuu ilaahay u abuuray inuu ilaahay saa u abuuray maxay ku tusaysaa awood bay ku tusi awood iyo qudro inuu ilaahay leeyahay tabaaraka wa tacaala thumma markaa kadibna insaankii markaan saa u abuurnay kadib radadnaahu waan celinay buu alla yidhi asfala saafiliin kuwa hoose hoostoodaan u celinay kan ugu hooseeya kuwa hooseeya kan ugu hooseeyaan u celinay ayib yani meel hoose oo salka ah oo hooseysaa la geeyey marka ila aladiina kuwii mooyaane aamanuu rumeeyey oo wacamiluu sameeyey alsaalixaati camalyaalka wanaagsan falahum waxaa u sugnaaday ajrun ilaa laakiinse yani wax haddaad doonto yani muthbar ka dhig ilaa laakiinse aladiina kuwa aamanuu rumeeyey وعملوا يعني منقطع له إلا الذين آمنوا كوا رمي وعملوا سمي الصالحات فلهم وحاؤسنا ذي أجر غير ممنون وكل قوين يا أنا هاي أجر أن لقوين نبي يقوليهين الله تبارك وتعالى مركو إنسان كشيء إنه توسنتي أقف عنيدكو أبوري أيها هذا نوح شيء ماشوا كدام بين دونه وحواي kuwa hooseeya ka ugu hooseeya laga dhigay waa naarta laana naartu wax kastoo hooseeya bay ka sii hooseysaa si jiin waa halkaasaa lagu tuurayaa ra'yigaasaa saxa waana ra'yiga ay jumhuurta mufasiriintu ay qabaan muxaqiqiintooduna ay rajaxayaan asfala saafiliina in laga wado ibni aadamka meesha loo celinayo inay tahay naarta inay tahay tafsiirka dhahaya asfala saafiliina waxaa laga wadaa cantatab oo markuu quruxsanaa oo caqli la xoog badnaa kadib yani inta jirkiisa isku dhaxdhacaa haddana caqligiisa uu luminayaa cantatab baa laga wadaa tafsiirkaas tafsiir saxsan maaha waa tafsiir daciifa oo aan tabar badnayn suuradda lafteeda daahirkeeduna waa diidaya xagga hore iyo xagga dambaba macnaha wuu diidayaa asfala saafiliin marka waa naartaa loo celin bini aadamkii quruxda badnaa muxuu ahay sidan quruxda badan loo abuuray meel hoose oo meelaha ugu hooseysa abaa loo celinaya ama darakaadka meesha ugu hooseysa ama kuwa naarta galaya hoosteeda la geynay meel hoosa la geynay tayib yaa laga soo reebay dadka mu'miniinta ah ilaahay rumeeyey xaq rumeeyey camalna la yimid oo shariicada ku camal falay
waajibaadkii gutay yani waxa kuwaas mooyaan kuwaas iyagu meesha hoose loo celin maaye ajir aan go'aynin bay leeyihiin ajir iyagu aan la goynayn oo xilli walba joogta ah abaalkaas iyagu leeyihiin طيب ثم marka kadib insaanka markaan saa u abuurnay kadib radadnaahu waanu celinay asfala saafiliina kuwa hooseeya kan ugu hooseeyaan u celinay hoos balgeena waa naarta waa illa alladheena kuwi mooya aamanu rumeeyay oo wacamilu sameey as-salihaati amaliyalka waa wanaagsan iimaan dhabana waa la yimaadeen acmaashay sameeyayaan waa acmaal saalixa saalix waa leeyahay amalku inaad ilaahay dartiina ula jeedo sidii loo jideeyayna u sameeyso طيب فلهم waxaa u sugnaaday iyaga ajrun ajr baa u sugnaaday غير mamnuunin oo kula gooynaya aan ahayn abaal gud aan dhamaad lahayn oo aan marna go'aynin oo joogta abay leeyihiin iyagu kuwa marka hoosta la geynaya waa kuwii yani iimaanka laga waayay iyo amalka saalixa fama yukadhibuka ba'du bid-din tani marka waxay ka hadlaysaa allah insaanka sida quruxsan u abuuray haddana hoos iyo naarta salkeeda u celinaya awoodda inta la egle in laga shakiyo miyay tahay ibni aadamka inuu abaal marin doono fama yukadhibuka hadalkaasi laba cidba waa loo jeedin karaya mufasiriintu in nabiga lagu la hadlayo oo yukadhibuka kaaful khitaabkaasi in nabiga loo jeedinayo iyo fama yukadhibuka kaaful khitaabkaasi in insaankii laga soo hadlayo loo jeedinayo labadaba way jiraan ka hore hadaynu marno oo sheekh ibn taymiya culimo kale ay rajaxayaan wuxuu noqonayaa fama keeba yukadhibuka yaj'aluka kaadiban wa keeba ka dhigaya mid been sheegaya ba'du cadaynta kadib bidiini diinka sababtiisa ruuxa ka dhigaya inaad been sheegayso waa kee ruuxa noocaasi jaahilka ahmaqa kee waa saasoo macna marka yukadhibuka yaj'aluka kaadiban biikhbaari ad-din waa sheegida aad sheegayso abaal marin baa jirta war waa la iska daba imaan doonaa waa la soo saari doonaa warka aad sheegayso ruuxa ka dhigaya inaad been ku sheegayso kaasi waa kee waa noocee ah saasoo macna waa ruux jaahil oo ahmaqa waa taasi waa nabiga hadii laga wado waa bacduna marbul waxa laga wadaa yani bacda albayan cadayntaas iyo dalaaisha adilada cad kadib ruuxa noocaasi kee waay marka bidiin marka waa aljazaa wal iqab wa abal marinta waa hadii laga dhigo fasiriinta qaar kood baa tan kale wata waxay leeyihiin fama yukadhibuka insaanki baa lagu la hadlaya waxay noqonaysaa isagana fama yukadhibuka ayu shay'in shaygeeba yukadhibuka yaj'aluka ka yeelaya bini aadamkiyow kaadiban mid been sheega ka yeelaya bacdu inta kadib bidiini diinka dartiisa mid been ku sheega maxaa ka yeelaya bini aadamow maxaa kugu kalifaya inaad been sheegto abaal marinta daraadeed inay abaal marin jirto oo la isla xisaabtami doono taa darteed inaad been ku sheegto oo tiraahdo ma jiro maxaa kugu kalifaya waa insaankii maxaa kugu bixinay markay arrimuhu cadaadeen kadib maxaa kugu xambaaraya maxaa kugu bixinaya inaad abaal marinta iyo ciqaabta iyo jazaha dartood inaad been ku sheegto maxaa kugu kalifaya ama yaj'aluka mukadiban mid beeniye maxaa ka dhigaya inkasto mukadiban taasi la durayo waxay leeyihiin yani waxa ka fiican kaadiban mid been sheega saas macna fama yukadibuka adiga warka murtiisa marka la soo xooriyo waxa weeye adilada cad oo ilaahay inuu adoomadiisa soo saarayo la xisaabtamayo abaal marinayo ku tusaya kadib cidda nabiga been buu sheegayaa leh oo abaal marintu sheegayo dhahayo been buu ku sheegaya waa kee ruux noocee ama insaankan maxaa ku xambaaraya inuu been ku sheego maalinta ama been ka sheego yani wax way is abaal marinta laana wuxuu wacad yahay markaas alaysa Allahu allam yusan ahanin bi ahkamil haakimiina kuwa wa xukuma ka ugu garsoorsan ama midka ugu xugum fiican kan ugu sugid badan ama midka ugu xugum wanaagsan Soomaa yani wax way hadii la yiraahdo khalqigan ilaahay baa abuuray
sidaasaana adduunka ku dhammaanaya abaalmarinna ma jirto waxaa meesha ka soo baxaysa ilaahay tabaaraka wa tacaala inuusan ahayn axkamul xaakimiin maxaa yeelay kii dulmiga sameeyeyna isagoon abaalkii dulmigiisa helin buu dhintay kii wanaagga sameeyeyna isagoo wanaaggiisa abaalkiisa aan helin buu tegey saasaana adduunku ku dhammaanaya haddii la yidhaahdo macnaheedu wax way xikmad la'aan buu ilaahay adduunkan u abuuray waay xakiim maaha marka saasaa ka dhalanaysa saas daraaddeed ilaahay axkamul xaakimiin waay hadduu axkamul xaakimiin yahayna waa laazim waxaa ka dhalanaysa inuu addoommadan adduunka abaalkoodii aan helaynin inay jirto maalin lays abaalmarin doono marka waa mide abuuristii hore maadaama uu awooday soo celintuu u daliishanaya waa mide xikmadda soo celintii abaalmarintuu tilmaamayaayo waxay ku salaysan tahay xikmad rabbaaniya ku salaysan tahay wailaa abuurka khalqigu cabath buu noqon lahaa afa xasibtum annamaa khalaqnaakum cabathan wa annakum ilayna laa turjacuun oo kale way macnaha haddaan laydin soo celinaynin abuuristiinaaba ciyaar markaasi xikmadba kuma salaysna macnaha famaa yukadibuka bacdu alaysa allahu alla miyuusan ahaanin biaxkami alxaakimiina inta wax xukumta midka ugu xugum fiican inta garsoorta midka ugu garsoor fiican soo alla ma aha tabaaraka wa tacaala jawaabtu waa haa haddaad taa ogashiin seed ku tidhaahdeen marka abaal ma jiro isa soo celin ma jirto aakhara ma jirto see soo meel kaga dhac ma ah oo ilaahay yani xikmadiisa markaa ma duraysaan way macnaha sidaas weeyaan suuratul calaq way suuradda afraad ee darsigeenna maanta iyaduna waa suura makiya waana suuraddii ugu horreysay qur-aanka soo degta allah tabaaraka wa tacaala marka wuxuu ku bilaabay iqra' bismi rabbika aladii khalaq fii saxiixi albukhaari wa muslim ayaa waxaa ku timid xadiidu caaisha waxay tiri nebiga sal alla alay wasalam wixii ugu horreeye nebiga lagu bilaabay wuxuu ahaa riyada nebiga waxaa la jeclaysiiyey inuu magaalada iyo dadka intuu isaga dhex baxo meel cidla iska aado godkaas god xiraa la yidhaha qaar xir buu iska aadi jiray nebigu sal alla alay wasalam meeshaasuu isaga cibaadaysan jiray muxuu ahaayey cibaadada de waxyi uma imaanin laakiin waxay leeyihiin wixii uu nebi ismaaciil waxyaalihii uun ka dambeeyey ee uu yani wax weeye ka soo gaadhay carabtaa iyo yani laga soo gaadhay inahaas iyo inuu ilaahay khalqigiisa ku fikira iyo waxyaalahaasuu duurkaasu isaga cibaadaysan jiray nebigu sal alla alay wasalam marka uuna uu sahay qaadan jiray sahaydu markay ka dhamaatana waa soo noqon jiray sahay kale u qaadan jiray isagoo halkii jooga ayaa malakul jibriil u yimid nebiga sal alla alay wasalam markaasuu wuxuu ku yidhi iqra' akhri markaasuu yidhi maa ana biqaarin mid wax akhriya ma yihi wax ma akhrin karo ma aqaano markaasuu wuu camajuujiyey cunuhu qabtay wuu ceejiyey waxoogaa wuu akhri buu ku yidhi maa ana biqaarin buu yidhi war ma akhrin aqaan haddana mar saddexaad buu ku celiyey iqra' bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq iqra' warabuka alakram aladii callama bilqalam callama alinsana maa lam yaclam shanta aayadood buu u dhiibay nebigu sal alla alay wasalam waa isku naxay marka waa argagaxay wuxuusan weligii arag waxbaa ku habsaday isaga oo yani wax weeye ay yani hilibkan meeshani uu gariirayo oo naxsan ayuu nebigu sal alla alay wasalam wuxuu u yimid xaaskiisii khadiija radia allahu tacaala canha markaasuu ku yidhi khadiijoy wuu u warramay wixii ku dhacay yani waan baqay buu nafteedaan u baqay idada markaasay way dadeen markii naxdintii argagixii ka baxay ayay marka kaxaysay wayna qalbiga u dejiso waxay tidhi ilaahay baan ku dhaartay ilaahay marna ku hoojin maayo ha baqin ilaahay ku hoojin maayo naag caqli badan bay aadna u degan ha baqin bay tidhi ilaahay tabaarak ku hoojin maayo maxaa yeelay martidaad u roon tahay masaakiintaad u roon tahay yani waxa weeye kasabka dadkaad u roon tahay qarabadaad xidhiidhisaa nin noocan oo kale ilaahay marna hoojin maayo ha baqin way qaaday markiiba oo ninay ilmaadeer ahaayeenoo da ahay waraqat ibn nawfal la dhihi jiray oo nin kutubtii hore wax ka yaqaanay oo dadkii nasaaroobay ahaa ayay u geyso da'na markaa ahaa markaasay tiri in adeer bal wiilkan yarka adeerka u tahay ka dhagayso warkiisa war maxaad aragtay buu wuu u warramay wuxuu ku yidhi ninka waxa kuu yimid waa khayr wadihii nebi muuse u imaan jiray markaasuu shallaayo wuxuu yidhi allow hadda da' baan ahaye marka
qowmkaagu ku saari doonaan maan joogo oon ku garab istaago maan dhalinyaro marka ahaado markaasuu nabigu ku baraarugay oo qowmkaygu miyay isaari doonaan ila nin la jecel yahay buu ahaa tolkiisa agtiisana magac ku leh oo miyay isaari doonaan yari doonaan haabuu yidhi ku saari doonaan maxaa yeelay waxaan aad soo wadeed la imaan doonto cid la timid ma jirto hortaa ilaa waa la saaray markaasuu tamaniyey xilligaa maan joogo aan ku garab istaagoon kuu hiiliyey waraqat ibn nawfal waqti dheer ma sii jirina markiiba waa dhintay wax yar kadibba waa dhintay marka nebigu sal alay wasalam yani waa aayadihii ugu horreeyey qur-aanka ku bilowday markuu jibriil u keenay ayay aayadahan ahaayeen waxayna ku bilaabanayaan yani ilaahay tabaaraka wa tacaala qudradiisa iyo awoodiisa qaybo ka mid oo la tilmaamay iqra baa marka nabiga sallallahu alayhi wasallam aqri bismi rabbika waxa lagu waxyoonaya aqri waay bismi rabbika rabbiga magaciisa adigoo ku bilaabaya adoo cuskanaya طيب الذي الله ربك سو خلق أبوري محو أبوري وحكست كل شيء خلق أبوري الإنسان إنسان كي أبوري من علق حنشر حق ذاك أبوري وتخصيص بعد تعميم بالإداد مركي هوري مخلوقات كورن أبور كوضا للشيء كدي با إنسان كأبور كيسيد قوني الله شيء إساقا هذا الدم تطهي الله صعدا وأنا مخلوق عجيب واحد من أعجب مخلوقات الله بكمدها ابن آدم خلق أبوري الإنسان إنسان كي من علق حنشر كأبوري محا حنشرت اللو يري عردي لما شيقين كهو الرئيسي وآدم لقى أبوري منيدي نطفدي يدنا لما شيقين حنشرت محا لوغا بالله لأنه وحيليهن وإسبدل كأقوه الرئية ابن آدم كو إنو سميسمبا أي كبالله وأمركو الرحيم كهو يكون لغيو وديق نقونيو oo halkaas marka ka bilaabanaya bay leeyahay waa mabda khalq al-insan bay leeyahay طيب اقرا اقري باليدي وربك والحار ربك ربنا الاكرم ويهمدك ديقده بدن الله وامد ديق بدن وخير بدن واحسان بدن واي الذي ربك سو علم بري بالقلم قلم كبري علم بري ما علم وحو بري بالقلم قلم كبري علم بري الانسان انسان كي بري ما لم يعلم وحسن اقونين بري الله هاسي مجيسا أذيقو أو كوب اللابية أخري باليدي وحلقو وحيونيو ساسا نبي يقول صلى الله عليه وسلم وفي رسمرك والنعم نعموين كيبالة تري ألا ومتك مخلوقات كان وضع أبوري كو إنسان كسيقونية أو أبوري حنشرنا كأبوري يعني حنشرتو ومركا أي فالقلكو دعو يعني وحوي وكنتي هويو حيوان كي منوغا أها انت إسلا فالقلان إسبدلك أقوه الرئي دعو oo takwiinkii aadamaha uu markaas bilowgiisii samaysmay way macna tayib waana marxalo aad u caji badan waay isbedelkaasi marka uu xinjirta noqdo aqri baa la yiri markale waxa lagu waxyoonaya aqri rabbigana waa midka deeqda badan allah tabaaraka wa taala mid khayrkiisu badan yahay ihsaankiisu badan yahay ihsaankiisana waxa kamida bal uguba weyn khalqigiisa adoomadiisa uu sameeynayo inuu hadalkiisa u soo dajiyay oo kitaabkan uu soo dajiyay sidanahoodii masaalixdooda loo tus wixii dhibahayana lagala taliyo looga celiyo tanaaba ugu weyn ba ihsaankiisa wa rabbukal akram inuu adiga arinta kugu sharfana waa karam iyo sharaf waa yani khayrkaas iyo wanaagaas allah leh kaas yani magaciisa ku akhri waa alladhi allah soo allama bil qalam qalinka wax ku baray ama allama bil qalam waxay leeyihiin culimadu بني آدم كأقونتيس صدح ميلود بكت ماذا معاني ذو قلبي قش عربك أو عبرة هي قلبك أو سوق صدح دي مرحلتي وقدم بيسيب على عبرة سلا بضك ولا أقوتس لأن مركو قلبك وح قريو وح كهر ريسي وح قريو وح قلبك كتشرة معنى قلبك كتشرة أي قرية وح كهر ريسي صدق على عربك أو كل واقع علومته أو علي قلبك قرية وحكى الله تلمامي بليهن قلبك qalinka malaa'igtuna waxbay ku qortaa aadamuhuna waxbuu ku qoraa waxa kale oo isagana loo tilmaamay culumta qalbiga ku jirta iyo midka af carabku ku hadlayo labaduba way baaba'aan oo way tagaan laakiin culumta qalinku qoro way raagaan saas daraadeed culumtii yani ama tii ilaahay soo dajiyay ama taariikhdii bini aadamku soo maray ama culumta aadamaha waxa waariya waa qalinka marka waa nicmo weyn oo ilaahay tabaaraka wa tacaala uu siiyay adoomada siiyay way macna allama bil qalami إنسان كوحو بري وحوسن أقونين
وكإلهي تبارك وتعالى إنه شيء إنسان كمركو أورك هو يدي كسو بحيو وحبا ما يقان سوى وحبا أقول نبو صوبحيا كدبنا الله تبارك وتعالى وحسيي أو ودقي حبنه الذي أجهزتي وحكو بر الله وقلبك مقلك يا أرق ساسو مركا وحكو برتي أما وحبرشدنا الدنيا ده هالنقطة أما تن كم مهم سنة إلهي سودة علوم الدين هالنقطة إنسان كيبو إلهي وحبري تبارك وتعالى مركا إنه وحبره علومتي سإنه قلنك كواريو وحكو بره إنه محوه أخرس كيبره إنه أبوري كل ذلك هو نعم وحلودك عن الله اقرأ أقري باسم ربك ربك وحلقوا وحيونا باسم ربك ربك مجي إسادو كب الله الذي الله سو خلق أبوري مخلوقات كورن خلق الإنسان إنسان كان سيجوني أو أبوري من علق حنشير وقع أبوري اقرأ أقري وربك ربك أنا الأكرم ميتك الدقيق بدن خير كبدن وإحسان كبدن الذي الله سو علم بري يعني وحو بري بالقلم قلم كبري علم بري الإنسان إنسان كما لم يعلم وحسن أقون بري سجوا جاهل أورك ويدي كصوبحيا كدبنا أما ويا أرجنما أما وحو أقرستي أما قلنك وحكو برني إلهي بأوفر وعلونتها أيضا معنا كلا إن الإنسان لا يطغى إنسان كي وحلا بري لا أبوري لا كلي لا نعمي محوسمي وركو أوديش كلا هكتشوجي إن الإنسان إنسان كي لا يطغى وقوقا بن آدم كي الرآه إنه يسوء أركي درتيد بوقوقا يا استغنى إنه ديق تومي إنه إسكوبة فيلين عدنا أوباهنين أو كاف تومو إنه يسوء أركي بوحي كينت إنه قوق إن إلى ربك حقي سعيهاتي الرجعة نقشده إنسان كي لو نمعي ماشي لغا سوغيو لغا فيلي إنه ربك كشكريو علمي كان يا أقوانت النسية أبو رينا ماشي لغا سوغاهي قوق إيه كيرو بقاضيبا إنه شفك قرعده وحسن أهين شيكته وكبره maxaa ku kalifaya wuxuu isu arkay inuu kaaftoomaba inuu san ilaahay u baahnayn waxyigii cilmigii diinta u baahnayn inuu muxuu ahay isku filan yahay sidaasuu isu arkay markaasuu kibir iyo qooq galay markaas waxa la yiri ha qooqee ha kibree ma ku waaraya maya inna ila rabbika ruj'a xagga rabbi bay noqoshadu ahaatay isaga bilaabay isaga xagiisana loo noqon doona sidaas way macna كلا هكجوج أرنكاس إن الإنسان إنسانك لا يطغى وقوقا وكبرا الرآه محاكو كلفيا الرآه إنه يسوء أركدرتد استغنى إسقو ديق تومي إنه ديق تومي بيسوء أركا أنت أباهية والرباتية وحوجا يعني وحوي وصاع الريا وقيلية وعلى عليا لكن مركو يسوء أركا إنه ديق تومو كاف تومو وسنعدنا أباهنين تاسا وحكو كلفيسا marka inuu kibro qooqo inna ila rabbika xaqi shay ahate arruj'a noqoshadu loo noqon isaga loo noqonaya way araayta alladhi yanha 'abdan ayadani waxay ka waramayaan dambe nabiga sallallahu alayhi wasallam intuu maka joogay niman ay qaraabo ahaayeen odayaashii quraysheeda baa nafta u keenay oo rafaadiyay nabiga sallallahu alayhi wasallam oo inay dilaan isku dayay oo wax badan kula kacay nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa kamid ah in dhigi jiray Abu Jahl oo khayr darna odaygaasi nabiga sallallahu alayhi wasallam ayuu la dagaalami jiray diintu nabigu wato iyo dacwada iyo khayrku la dagaalami jiray waxa dhacday maalmaha kamida ila nabigu intuu kacbada ku tukan jiray markaasuu intuu xanaaqay wuxuu Abu Jahl ma Maxamed ba intuu yimaado hortiina ayuu wajiga dhulka ku xoqaya miya laata iyo Uzzan ku dhaartay waa labadii sanam laata iyo Uzzan ku dhaartay hadaan arko isagoo sujuus inaan qoorta kaga istaagi waa soo dhaqaaqay ninkii soo ordahay hal mar waxa la arkay asagoo gadaal u guranayo gabasho ku jira war maxaa kugu dhacay baale wuxuu yiri socodkan socdayba isagii aniga waxa dhexdanada galay biru tog weyn oo naar ah hawl iyo waxna waa iga hor yimaadeen buu baqdin baa iga soo carray nabigu warku qarray wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam nabiguna wuxuu yiri law dana minni lakhtatafatu almalaa'ikatu udwan hadduu ii soo dhawaan lahaa malaa'igta xubin u dafi lahayd buu nabigu sallallahu alayhi wasallam markaas waxa soo degtay aayadahana soo degay marka xadiiska muslim baa warinay طيب marka ninkaas laga hadlaya rag la midka araayta bal ka waran alladhi midka yanha reebaya abdan adon ida goorti salla uu tukanayo araayta bal ka waran in kana haduu yahay adoonkaasi la reebayay ala alhuda hanuunki korkiisa haduu ku sugan yahay
أو أما سأمر هدو أمريو بالتقوى على كعبسك هدو أضومد أمريو أرأيت بالكورا إن كذب كان أدي دينا هدو بينيي حقي إيمانك هدو بينيي وتولى هدنا وكتشي سدي بالكورا ألم يعلم يوسن أجين بأن الله ألا يرى إنه أركي سموسن أجين يا سموغا طيب ألم يعلم يوسن أجين بأن الله ألا يرى إنه أركي